السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsadani conflict resolution maanta waxaan bilaabana mulka shanaad oo ku saabsan mediation and facilitation oo ah dhexdhexaadinta iyo fududeynta dabcan haddii mar conflict laga hadlayo iyo xal khilaafaad waxaan marnaba lama maari doonin insha Allah in la sameeyo dhexdhexaadin iyo qof dhexdhexaadi waanta labada qafood ama labada koox ee conflictiga ka dhaxeeyo iyo qof fududeeya xiriirka iyo iyo waantaas iyo in labada koox ay khilaafka ka dhaxay heshiis ay gaaraan cutubkan wuxuu ka mid yahay cutubyada muhiimka ah ee koorsadan waxaynu u qaybinaa laba qayb part 1 iyo part 2 wax ma ka fahamsan tahay sida ay u shaqeeyaan bangiyada islaamka kooraskan Islamic Banking and Finance waxa uu ku furayaa waji cusub oo aad si qoto dheer loogu barato nidaamyada maaliyadeed ee looga shaqeeyo bangiyadan adigoo kala saari doona waxa ay kala yihiin muraabaxa mudaaraba mushaaraka ijaara salaam iyo istisnaa ku baro muddo gaaban oo ku soo biir kooraskan Islamic Banking and Finance ee ka baxay website-ka Baghdad Academy.so hadda iska diiwaangeli website-ka ama nagala soo xiriir WhatsApp nambarada shashada kaaga muuqda topicyada aan ku gorfayn doono labada qaybba waxay kala yihiin kow inaynu qeexno mediation and facilitation maxaa la yiraahdaa maxayna ku kala duwan yihiin mid walbana munaasabada iyo contextiga uu munaasib ku yahay ayaynu ka hadli doonaa sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa how to mediate or facilitate a conflict sidee qofka uu mediator ama dhexdhexaadiye amaba facilitator ooga noqon karaa conflict steps la mara ayaa jiro iyo habraacyo waynu gorfayn doonaa advantages of mediation iyo disadvantages of mediation way ku hadli doonaa oo ah waxyaabaha dhexdhexaadinta ay ku wanaagsan tahay as a way oo lagu xaliyo conflictiga iyo waxyaabaha aysan ku wanaagsaneyn ayaduna waynu ka hadli doonaa insha Allah hadaba aynu bilaawno mediation and facilitation are two different approaches to resolving conflicts dhexdhexaadinta iyo fududeynta to mediate waa inaad wax dhexdhexaadiso facilitate-na inaad wax fududeyso so marka fududeynta iyo dhexdhexaadinta waa laba approach waa laba qaab oo kala duwan oo lagu xaliyo khilaafaadka resolving conflict mediation marka waa maxay is a process in which a neutral third party helps two or more parties reach an agreement mediation ama dhexdhexaadinta waa habraac iyo qaab uu qof dhexdhexaad ah oo qof saddexaad oo dhexdhexaad ah yani maxaa saddexaad loo yiri laba qafood ay seesato waa laba group saddexooyahooda waa dhexdhexaadiyahooda so marka waa qof dhexdhexaad ah waa party saddexaad oo dhexdhexaad ah oo caawinaya two or more parties laba ama wax ka badan koox inay gaaraan heshiis amaba agreement so marka mediationka dhexdhexaadinta waa habraac iyo nidaam iyo qaab iyo systemka qof saddexaad oo dhexdhexaad ah uu ku dhexdhexaadinayo amaba uu ka caawinayo laba group ama ka badan oo is haysto inay gaaraan heshiis so marka facilitation is a process in which a neutral third party helps a group of people work together to achieve a common goal hadaba haddii mediationku sidaa yahay waa maxay facilitationka marka fududeynta amaba facilitator qofka wax fududeeya la yiraahdaa mediatorna qofka dhexdhexaadiya la yiraahdaa facilitationna waa fududeynta hawsha fududeynta waa the action waa processka ee habraaca ee qaabka uu qof saddexaad oo dhexdhexaad ah uu ka caawinayo group of people to work together inay isla shaqeeyaan si ay u gaaraan common goal ay leeyihiin amaba hadaf oo ka wada dhaxeeyo si ay u gaaraan so this is what's called facilitation so marka waynu kala sii qaadi doonaa insha Allah midaan u eegeynaa so marka haddii aan si gaar aan u eegno marka mediationka waxaanu dhihi karnaa mediationka waa process in which a neutral third party called a mediator helps two or more parties reach an agreement waa habraaca iyo qaabka qof saddexaad oo dhexdhexaad ah oo loo yaqaano mediator amaba dhexdhexaadiye uu ka caawinayo two or more parties laba party ama laba group ama wax ka badan reach an agreement inay heshiis gaaraan طبعا maxaa heshiis loo gaarayaa waxa heshiis loo gaarayaa because there is a conflict that is why mediation uu qayb ka yahay conflict resolution approaches qaababka lagu xaliyo khilaafaadka waa dhexdhexaadinta so marka dhexdhexaadinta waa processka qof saddexaad oo dhexdhexaad ah uu ku dhexdhexaadinayo laba shakhsi ama laba group oo is haysto si ay u gaaraan heshiis ama agreement so marka the mediator dhexdhexaadiyaha does not take sides or make decisions for the parties ma aha qof qaadanaya side macnaha dhinacna uma
يعني حقلينايو يا labada dhinac is haysto midna uma xaglinayo go'aanna uma qaadanayo labada party hawshiisu waa dhaxdhaxaadin asaga inuu go'aan qaato hawshiisa ma aha inuu labada dhinacna mid kamid u xagliyo ma aha instead the mediator helps the parties communicate with each other and find solutions that are acceptable to both sides mediatorka hawsha uu qabanaya waxa weeye inuu ka caawiyo labada party inay communication sameeyaan ay wada xiriiraan ya si ay u helaan xal find solutions xalkaasoo ah acceptable to both sides mid labada dhinac ay aqbali karaan oo ay yani raalli ku yihiin oo ay diyaar u yihiin inay qaataan very important mediation is often used to resolve conflicts in the workplace family and community dhaxdhaxaadinta waxaa loo isticmaalaa in lagu xaliyo khilaafaadka goobta shaqada mida qoyska iyo communityga iyo xataa mida wadamada dhexmarto oo in dhaxdhaxaadiyaal ama mediators in la helo yeah it can also be used to resolve legal disputes sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu xaliyo khilaafaadka dhanka sharciga la isku haysto ama legal disputeska la isku haysto hadda mesela for example Kenya isha kadib doorashadii la qabtay oo Ruto ku soo baxay maalmahan waxaa socda طبعا maalmahan markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa bisha July 3keeda 2023 waxaa laga yaabaa cashirkan inaad xilli dambe aad daabato waxaa socota waan yani uu wado madaxweynaha Nigeria hore Olusegun Obasanjo oo labada dhinac Ruto iyo Raila Odinga uu ku dhaxdhaxaadinayo waa mediation ya soo marka mediationka dhaxdhaxaadinta marka waxa weeye waa approach runtii loo isticmaali karo in lagu xaliyo khilaafaadka haddii tahay dhanka goobta shaqada shaqaalihi qaar kamid ah is haysto family nin inaagtiisa ama xaajiyadiisa family oo dhaxal isku haysto family oo problem kale u dhaxleeyo communities bulshooyin isku diin ahayn amaba oo isku haysto resources طبعا waxyaabaha conflict dhaliyo community-ga waan arki doonaa later on chapter soo socda insha Allah laakiin si hordhacan ooga soo hadalnay cutubkii koowaad waxaynu niri sometimes resources la isku qaban karaa soo marka runtii yani hatta waxa loo isticmaali karaa legal disputes yani isheeg muxuu ahaa waxyaabo oo inta maxkamadda la isla tagay oo la isla xalin waayay oo taagan ayaa waxa laga yaabaa in maxkamadda inta laga soo weeciyo qaab yani dhaxdhaxaadin ah lagu xaliyo facilitationka marka aan si gaar u eegno marka asaga facilitationka ama fududeynta is a process in which a neutral third party called a facilitator helps a group of people work together to achieve a common goal yani facilitationka ama fududeynta waa process iyo habraac qof saddexaad oo dhaxdhaxaad ah oo loo yaqaano facilitator uu caawinayo group of people inay isla shaqeeyaan si ay u gaaraan hadaf ay ka wada siman yihiin amaba ka wada dhaxeeyo ya xagga maxay ahayd mediationka reach an agreement ay ahayd Soomaa wuxuu ka caawinayaa labada group inay heshiis gaaraan halkaana maxaa la yiri wuxuu ka caawinayaa inay gaaraan common goal hadaf labadooda ka wada dhaxeeyo oo ay dhahaan alla ilaa this is what we have in common yool oo labadooda ka wada dhaxeeyo oo ay hiigsadaan the facilitator does not take sides or make decisions for the group marka qofka fududeeyaha ah ya labada dhinac kala duwan kala fikir duwan kala ra'yi duwan ya kala dood duwan kala position duwan ya midkoodna uma xaglinayo ya sidoo kalena go'aan uma qaadayo oo go'aanka ayaga iska leh soo marka laakiin hawshiisu waxa weeye to facilitate inuu fududeeyo oo u fududeeyo labada koox inay gaaraan common goal instead the facilitator helps the group set goals communicate with each other and solve problems ya qofka facilitatorka wuxuu ka caawinayaa groupka inay ahdaaf degsadaan communication ay sameeyaan oo ay wada xiriiraan sidoo kalena ay xaliyaan hadba khilaafka ka dhaxeeyo facilitationka marka waxa la leeyahay is often used in business meetings training sessions and community projects facilitationka inta badan waxa la yiraahdaa waxa loo isticmaalaa shirarka ganacsiga marka la isku yimaado you know oo yani mesela for example laba business oo rabo in ay isheeg muxuu ahaa inay heshiis ay gaaraan you know shir u furan yahay ama xataa community conference mesela community conferencingka wuxuu ka mid yahay approacheska lagu xaliyo khilaafaadka oo communityga in shir la iskugu yeero daarisa Soomaaliya waa maqashaa marar badan yani waa in shir isheeg muxuu ahaa nabadeyn ah la iskugu yeero beelaha Soomaaliyeed ya waa facilitator hada mesela for example Soomaaliya shirar badan loo qabtay yani isheeg muxuu ahaa kii carto kale مثلا waxa facilitator ka ahaa
Djibouti dowladda Djibouti ayaa facilitator ka ahaa oo facilitate gareynayay Soomaalida meesha iskugu timaaday inay common goal iyo yool iyo go'aan oo mustaqbalka Soomaaliya iyo dowladnimada ay ka gaarto. So marka waxaa loo yaqaanaa yani facilitation. So marka this is really very important. So marka facilitationka marka iyo mediationka macallin maxay ku kala duwan yihiin? Labadooda waxyaabo badan ay ka midaysan yihiin oo ah in qofka facilitatorka ah ama mediatorka uu yahay mar walba qof dhexdhexaad ah oo saddexaad oo labadii qof ka baxsan oo is haysatay. Waxay kaloo ka midaysan yihiin in uu qofkaas labada dhinac midkoodna uusan u janjeereynin oo side uusan qaadanaynin. Waxay kaloo ka midaysan yihiin in qofka uusan power iyo awood u lahayn uu ku qasbo sida mesela maxkamad oo kale ay awood u leedahay inay ku qasabto labada qof midkood ama labada qofba in ay yani ay arintooda dhan u dhacdo. Qofka awooddaas ma laha, yani awooddiisa waxay ku kooban tahay inuu labada dhinac ka caawiyo communication inay sameeyaan. Mediationka markii la joogo marka qofka mediatorka hawshiisa waxa weeye inuu labada dhinac ka caawiyo inay heshiis ay gaaraan. Qofka facilitatorkana hawshiisa waxa weeye inuu ka caawiyo inay communication sameeyaan, common goalna ay yeeshaan. Haddaba how to mediate marka sidee mediation loo sameynayaa? Mediationka qaabab kala duwan iyo processes loo maro ayaa jiro. Insha Allah cashirka soo socdo ayaynu part 2 ayaynu oga hadli doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Intaa ku kulmi doona cashirkaas waxaa idinka tagaya fi amaan illah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.